بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaanu ka hadli doonaa jacaylka xaaraanta ah jacayl ee ku bilaabma ama ujeedkoodu yahay hebel ama heblaayo ayaan la socdaa waa kuwa xaaraanta ah kumana dhammaadaan ugu dambayn wax guura waxaa jirta qaacida tidhaahdaa wax kastoo lagu dhiso xaaraan waxa ay noqonayaan xaaraan sidaa daraaddeed ha bilaabin xidhiidh xaaraan ah oo aad u malaynayso inuu ku dhammaanayo guur maxaa yeelay keliya waa aad riyoonaysaa yaad og tahay in kuwa rag isku sheegii ay ku duurayaan hareerahaaga imise gabdhood ayaa ku soo dhacay shabagooda balse iyagu arrintaa waaba ay ku faanayaan ku dadaal inaanad ka mid noqon kuwaasi oo ha rumaysan qof kasta oo kula yimaadaa arrin dadban oo aan saxsanayn ha rumaysan midka rag isku sheega ee kule adigu maxaad u xidhan tahay maxaanad u ahayn mid furfuran maxaanad ila dhaqmayn si reer magaalnimo maxaa yeelay waxa uu rajaynayaa in walaashii ay sidaada oo kala noqoto laakiin waxa ay xaaraanta iyo xumaanta kala raali yihiin gabdhaha dadka kale kalamana raali ah gabdhahooda sidaa daraaddeed taas ayaa inoogu fulan tusaale iyo ogaanshiyo jacaylku ma aha xaaraan qofka raba inuu sameeyo jacayl waa mid waddadiisu caddahay bannaan tahayna tusaalena waxaa inoogu fulan nafsaddeena ha hoojin oo dhabarka ha ka toogan hooyo iyo aabbo rajaynayay oo barbaarinayay gabadhooda in badan ugu dambayn adna aad timaado oo aad ku ciyaarto rabitaankeeda iyo caqligeeda ujeeddadaada darteed mahadsanid macasalaama صوم بشهر رمضان صوم بشهر رمضان صوم